Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dear students, this is Teacher Adam and this is a new lesson. So dear students, dear brothers and sisters, this is a new chapter. This is actually chapter 6. We've started a new chapter. So this is chapter 6. So we're going to cover in this chapter, inshallah, to be review. We're going to review to be, the verb to be, present continuous tense, review. So we're going to review to be, review, present continuous tense, review, prepositions of location, family members, describing activities and events. All of these things, inshallah, we're going to, cover them, at the end, in this topic or in this, chapter. So let's get started. أرض شرفت بدنا معلي هذا 10 كلا عصب وحنبلوني عتب لحدهم بلوني intana ayaanu maxaan ku raacday chapter kan ama cutubkan aan ku dhigan doono haddii la yiraahdo marka cashirka nagu horeeya waxa weeye vocabulary preview oo erayada ugu muhiimsan chapter kan ama cutubkan aad ku dhigan doontaan ayaanu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dulmari doonaa waka dadkan waa usrada waa vocabulary ku saabsan usrada ama qoyska number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6, number 7, number 8 ilaa waxay soconayaan number 17 oo 17 eray oo ku saabsan caa'ilada ama qoyska ku saabsan weeyaan marka number 1 iyo number 2 waxa weeye wife iyo husband waka number 1 waa wife number 2 waa husband wife waa gabadha ama xaaska weeye husband waa ninka ama xaajiga marka labada isqabta gabadhana waa wife ninkana waa husband marka husband wife husband. Number parents, parent. markii badin asbal raacnaya parents, parent waxa weeye waa waalidiin parent waa waalid parents waa waalidiin marka parents waxay ka kooban yihiin mother iyo father mother hooyo father abe parents waa mother iyo father parents waa waalidiin mother hooyo father abe children waa ciyaalka caruurta la dhalay way ubadka weeye children marka hal canugu yahay waa child markay badan yihiin waa children number 5 and number 6 so let's see number 5 and number 6 5 this is the boy and this is the girl so the boy and the girl we call them daughter the girl we call the daughter inanta waxa la yiraahdaa marka hooyada aabada waa hooyo iyo aabe ama gabadha iyo xaajigeeda ciyaalkooga waxaan waa ciyaalkooga inanka iyo inanta way dhaleen marka inanta waa daughter inankana waa son marka inantooda waa daughter son marka daughter iyo son waxay iyagu ugu yeerayaan wey hooyada kale waxay oranaysaa this is my daughter tani waa inantayda aabbaana wuxuu oranayaa this is my son kani waa inankayga wuxuu kale oran karaa this is my daughter tani waa inantayda iyada waxay oran kartaa this is my son kani waa inankayga iyagu maxay isku yihiin marka isku yihiin sister number 7 sister waa walaashi brother waa walaalkeed sister brother marka wife husband mother father son daughter sister brother 9 and 10 grandparents waa ayeeyo awoowe grandparents waa waalidiintooda ama ayeeyo iyo awowo and grandmother grandfather grandmother waa ayeeyo grandfather waa awowo marka awowi ayeeyo iyo labada maxaa ku inanka inanta ay ubadkooga dhaleen marka ayeeyo inantan ayeeyo u tahay inankana ayeeyo u tahay isna awow yahay marka grandchildren waxa weeye waa ubadka ama ciyaalka loo yahay ayeeyo awow loo yahay marka inanta wuxuu ugu yeedhayaa labadooda inanta waxay ugu yeedhayaan granddaughter marka waa inanta ay maxaa ku raad ayeeyda ama awowga u yihiin grandson waa inankay u yihiin ayeey ama awow u yihiin markay u yeedhaan xoranayaan this is my grandson xoranaya this is my grandson this is my granddaughter labadoos xoranayaan this is my granddaughter this is my grandson 13 14 you see 13 here she is and where is 14 and this is 14 yeah they said 13 14 wa 13 wa aunt wa edo uncle wa edo iyo habaryar labadaba noqonaysa labadaba aunt wa edo ama habaryar uncle
uncle waa adeer ama abti. niece waa inanta loo yahay adeerka loo yahay ama abtiga loo yahay ama habaryar ama eedda loo yahay weye. waa inanta maxaa ku dhahdaye niece waa inanta u dhalay walaalka u dhalay ama walaasha ay dhashay. nephew waa inanka ama walaalka u dhalay ama walaasha ay dhashay. nephew. cousin waxa weeye waa inanka ama inanta aad ilma adeerka tihiin ama aad tihiin allahuma salli calaa sayidina maxamed ama in abtiga aad tihiin ama habar wadaagta tihiin weye. cousin. husband waa gabadha. husband waa ninka, waa labada isqaba. parents waa walidiin, mother hooyo, father aabe weye. children ubadka ama ciyaalka la dhalay. daughter waa inantooda. son waa inankooda. sister waa walaashii sister. brother oo walaalkeed. grandparents waa ayeeyo awowo weye. grandparents. grandmother waa ayeeyo. grandfather waa awowo. grandchildren waxa weeye waa ubadka ayeeyo ama awow loo yahay. granddaughter waa inanta ayeeyo ama awow loo yahay. grandson waa inanka ayeeyo ama awow loo yahay. aunt waa eedada ama habaryarta. uncle waxa weeye adeerka ama abtiga. niece waa inanta ama adeer loo yahay ama abti loo yahay ama habaryar loo yahay ama eeda loo yahay. nephew waa inanka loo yahay abti loo yahay ama adeer loo yahay ama habaryar loo yahay ama eeda loo yahay. cousin waa in adeerka ama in adeerada, in abtiga ama in abtida, habar wadaaga ama har wadaagta. saasoo kale weye. malama waxa kaldan. I think that's it. so lessonkan xaggaa buu nagu egyahay. marka lessonkan waxaad ku baranaysaan usradaad ku baranaysaan. marka ayeyda maxaad ugu yeeraysaa ayeyda, you call her grandmother. awowga maxaad ugu yeeraysaa grandfather, you can say this is my grandfather, kani waa awowgay. this is my grandmother, tani waa ayeeyaday. daughter inantaada maxaad ugu yeeraysaa inanta aad udu dhashay. this is my daughter, this is my son, kani waa inankayga, tani waa inanteeda. walaasha maxaad ugu yeeraysaa sister, you can say this is my sister, tani waa walaashay. walaalka maxaad ugu yeeraysaa brother, you can say this is my brother, kani waa walaalkay. hooyada maxaad ugu yeeraysaa this is my mother, tani waa hooyaday. this is my father, kani waa aabahay. xaaskayga maxaad ugu yeeraysaa wife, you can say this is my wife, tani waa xaaskayga. husband gabar haddaad tahay ninkaaga maxaad ugu yeeraysaa husband English, waxaad oranaysaa this is my husband, kani waa maxaan ku dhahday xaajigeedaad oran kartaa ama this is my husband, kani waa maxaan ku dhahday ninkayga, whatever you want to say. grandchildren inanta aad awowga u tahay maxaad oranaysaa this is my granddaughter, tani waa inantan ayeyda u ahaa ama awowga u ahaa. inanka aad ayeyga u tahay ama ayeyda u tahay maxaad oranaysaa this is my grandson. inankan awowan u ahay ama ayeyan u ahay. aunt eedada waa aunt, this is my aunt. uncle waa adeer. niece waa inanta aad waalidka u tahay, walaalka u dhalay ama walaasha ay dhashay. nephew waa inanta walaalka u dhalay ama walaasha ay dhashay. nephew. cousin waa inanka ama inanta adeerka u dhalay ama abtiga u dhalay ama habaryarta ay dhashay ama ayeedada ay dhashay. I think this lesson was very long. We'll stop the lesson there, please. In case you have any questions, please write the questions in the comments. All questions are welcome. They are warmly welcome. And I will stop the lesson there. And I'll leave you with Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.